iscunaan waana la ogyahay waa istumaan waa isruugaan waa isbabiyaan hadduu asaga karaama daradiisa ay siisay inuu naagtiisi oo la jiifay uu soo duubo. السلام عليكم habeen wanaagsan maalin wanaagsan waqti walba ay ku taa wanaagsan soo dhawaada asxaabta qaaliga gacmo furan qalbi furan ku soo dhawaada fadlan hadaan ugu cusubtaa waxaan ku leenahay subscribe kana saar share ka iyo like taba insha Allah biidnillaahi kariim sida adiga wanaagsan tahay asxaab kale wanaagsan oo badan inay gaarto kumanaanka nagu xiran kamid noqo insha Allah biidnillaahi kariim haduu la yiraahdo asxaabta mar walba waxaan leenahay kal ilaa qalbiga salaanka soo goday naga wada gudoomo insha Allah biidnillaahi kariim kuwan hore noola joogay iyo kuwa naga cusub insha Allah haduu la yiraahdo salaan qaaliya waxa waaye waa waqtigii la iscafi jiray shamcaan ayaa ku jirnaa ramadaankii bisha barakeysaneed anagoo qeyr qabna Allah na gaarsiiyo ayaa soo socoto gabdhihii Soomaaliyeedna baraha bulshada ayaa looga oysiinayo wiilashoodii walaalahood nimankoodii intaas waa dhihi karnaa waxaan leenahay war hooyo waa ku dhashay gabar waa ku dhalatay waana dhashay waana ku dhaxday bal u xisaabtama rago gadaal u xisaabtama haduu la yiraahdo nin jecel ma jiro in xaaskiisa laga ooyo walaasha laga ooysiyo wax laga ooysiyo laakiin ragga Soomaaliyeed kan ayay naqdeen markaa hunguri ayaa dilayaan dhihi karnaa wax kala ma almuhim Safiya Tusmo abwaanad fanaanad jilay Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed waxaa leenahay sharaf ayaa leedahay sharaftaada qof ma haysan karto agteena Ilaah baa sharaf ku yeelay sharafana kala haanay waliga Allah ha u jabin waxyaalaha qaarkiis hana iscalal xumeenin shambiri waaye si walaashii ku sheegi doonto dhageyso gabartaas kartida leh ayaan qayb ka sii doonaa insha Allah balan la daawada duu la yiraahdo haddaan markaa musqusha galaysid markay naagta ilmo dhasho musqusha markay gasho ee muraayada isku fiirisa ayadaaba iska naxaysaba see nin isugu duubay marka how can nin Safiya Tusmo waa ka hadlay walaashay waxa waaye waxaan leeyahay Allah ku aruuriyo waa kula degtaan leeyahay doontaas asaaranta bilaa darawalka kartideeda lahow waxaaba ooynin looma baahan inay ooysid maxaan marka kugu dhacaayeen waxa waaye waxa adigu ugu tala gasho waaye walaashay maraba inaan ku sii dheeraado aniga mana ku diganaay laakiin waxaan u sheegaa walaashay inay ooyinta iska deyso calool jileec iska deyso samahow aniga markaan dareemay horta waxaa la dhahay waa ninkii qaba arinka ninkii qaba naago aroosaa la dhahay samahow maseera meesha soo galaayo soo maseer iyo looma baano marba haddii fara laga haayo waxba ooynin waxba maskaxdaada iska mashquulinin caadi waay waxa ka macne waxaan wax weyn ma aan shambir bisa lagu wadaaya shambir ka bacdan waxa waa suuq waa ka bixaysa to kala cusub soo galayso soo waxaan ku dhahay aniga walaashay ilma ku sugaayo hooyo waxa taasay sheegayso wiil xanuunsan haysato waxa ku dareemi karo qofka Mareykan joogo oo kula joogo oo qof ilma xanuunsan yaqaan macnihiisa ku dareemi karo soo waxaan ku leeyahay maskaxdaada qaali waaye nin xun oo bini aadan iyo faraxun oo ka qabtay boqolaa in la isoo siyaa moog qolka dilis la soo galo iska qodaa beebe haddoo soo duuba oo soo dhigana asiga karaama daradiisa waaye adigana waxaan ku leeyahay caawa laga bilaabo hadalkayga dug soo gaaro mas'uusha tag big shower qaado labiska ugu dambeeyo xiro safiyadaadii ataa wax ka bedelan ma lahan neenay naag markay is aroosaan inay cagaa iska tumaan quraan ma la akhrinayo guri markii la galo no way ama hala duubo ama hala daayo in la isgaraacayaa moog waxaas caadi waa beebe kor isku qaadaan ku leeyahay yaana dhibca lagaaga raadsan don't ever cry aan ku leeyahay faras aan saaranaay iyo qoortaa war xarig iga xiran yahay waxaas iska iloo calool jileecaas waxaas waxa la dhigi jiray 1999 iyo wixii ka horeeyay hooyooyinkani aabeen markay marada bisle kor isaga qaadi jireen afaaraas waqtigaas laga hadli jiray adduunku waa horumaray waxaasna caadi waageen waa iscunaan waana la ogyahay waa istumaan waa isruugaan waa isbabiyaan hadduu asaga karaama daradiisa ay siisay inuu naagtiisi oo la jiifay oo soo duubo naagta markay inta isqaawisay inay isduubto miya walaa sheekadiina xaawiye aadan u noqdo afaariina xaawiye aadan u noqdo asxaabay waxaan balaayada iska dhigaysin ee dabadan dhamaatay ee naasaan 10 culug soo nuugay meelahan ka soo ridaysin inta joojisin iyo calooshan haddaan markaa musqusha galaysid markay naagta ilmo dhasho musqusha markay gasho ee muraayada isku fiirisa ayadaaba iska naxaysaba see nin isugu duubay marka how can nin inta isku hoomanin gabar ooynaysa aragt hoomani gabar rafaadsana aragt soo marka dib ma lahan
aday kuu taalaa kolley adaa jooska iska leh haddaa isduubaysaan waxaan ku dhilaa intaan lagaala soo horumarin ba adi soo geli qaniyaa kaa fujiso dan wax ku abuse waxa lagu abuse garaynayana waa inaa yeeshid maba ahanba because maxaa lagugu abuse garayn karaa waxaa ogtaa in lasoo dhigayo social media inaa 2 sano iyo 3 sano lagugu abuse garayaaba qalad inaa mar hore adi soo dhigtay ahayd mar hore inaa adi soo sheegtidayba ahaydba oo soo firdhisid waxaa ahayd sidoo dhan Soomaaliya oo dhan baa salaamaya ummada Soomaaliyeed intii magacayga iyo muuqayga taqaanaan salaamaya walaalahay iyo caruurtaydii oon أنا آمن سنة إنا 1 year كسو مقنا من كسو تجي أنا وليبا وقصو تجي wrong reason أنا وقصو تجي بان على كردون كنا يعود وحن هيستا ويل أوتيس من هيستا أو ما ركتي هادو يرد أفرو من سوقلي غوركو سو نقونيني بس كإن لقديش يولو تاجراد أي تايو غورك هادي زمالي درس لما هي haddii baska marka uu yimaado aanan loo taagnaanin dee ay jildana serviceka u geyn karaan oon ka soo tegay oon qalad uga soo tegay ayaan hawada ka dhunkanaya waxaan salaamayaa wiilkayga aabihii Abdinuur Daljir oo inankaygii maalin walba ilmihiisa booqda gurigaygii mar walba tago caruurtaydii ka warhaya u mahad celinaya waxaan salaamayaa qof kasta oo sirtayda iyo situationkayga og oo haddana isku kib gareeya iyagu qarin kara sirtayda ayaan salaamayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa fool haddii timaado guda qarsiima hadhe mar baa waxa ku qabsanaya wax ka weyn oo nad ma daragtay adigu handle gareyn karin أصحابته إلى هندل جريسة ما دركتي especially حولها قاركوت وما دركتي على بدي السنة هذا كسوق سنة كان كسوق قدوم إيه سنة كان يقرب تاجنا وان هذا علينا في ما haddii hub inta lagu soo qaato gurigaaga la soo weeraro wad isdifaaci kartaa wad dagaalami kartaa dad baad u yeeran kartaa iyo dariskaaga iyo booliiska iyo waxaad wacan kartaa wax kuu soo gurmada ma doonaya inaan detail ka galo ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxa maxaan ku dhahdaa 2 years my life was live in hell ayaan dhihi karaa it was live in hell marka si you know dadku waxyaalo badan oo waxa jira ay u dul qaadan karaan maanta ma rabo inaan taabto this actually the point ma rabo inaan taabto laakiin I almost have a nervous breakdown haddaanan ahayn qof muslina haddaanan ahayn qof lagu soo koriyay dhaqan iyo diin haddaanan ahayn qof khibrad adduunka u leh oo maaragtay qof weyna I would go crazy or lose my mind waxay qabsaday waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo igala qayb qaatay oo ilaa hadda igarab taagan waxaa laga yaabaa sida aan anigu wax u filayo inay wax u dhicin oo anu dareemayo aan maaragtay waxaan filayo inaanay dhicin baa laga yaabaa in the same time-na waxaa laga yaabaa in noloshayda ay destroy noqoto dadka slave-ka ah America waxaa jiri jiray dad adooma ah si qaldan baa loo diri jiray qofka waxaa la saari jiray faras baa lagu fadhiisin jiray xadhig baa qoorta loo suri jiro geedka ka soo laalaado qofka noloshiisa waxa ka hadhay intuu farasku dhaqaaqayo faraskaasi hadduu dhaqaaqo meydkiisa warfanaya I don't want to go deep ma rabo inaan galo
laakiin last 2 years I was sitting on that horse faraskaas baan ku taagnaa. My life can be shattered like sida galaaska inuu u jabo ayaan in yar u taagnaa ilaa haddana u taagnahay. I don't know xilligan ka bixi doono iyo sidaan kaga bixi doono, laakiin I had a difficult time baan soo maray, ilaa haddana difficult time baa i saaran. I was hiding for a long time, but I don't think inaan isku kibgareeyo is not helping me. waxyaala waxaa jira aanad even your best friend kala hadli karin, aanad kala hadli karin walaalka, hooyada iyo aabbaha aanad kala hadli karin, waa adig ku gaara. saan horeba u sheegay ma dhaadhici karo, ma taaban karo point, laakiin just waxaan u mahad celinayaa dadka i garab taagan, sirtayda og, iyagu isku kibgareeya qariya, iga warhaya, maxaan ku idhaahdaa micnaha walow aanay waxbaba iiga qaban karin, haddana isiiya encouragement isiiya, yidhaahda you gonna survive, you gonna waad ka bixi doontaa, waxaan iska dhammaanayaa, calool adayg. ayaan mahad celinayaa dhammaantood, wiilal iyo gabdhaba. sidaa nala daawateen waa gabar Soomaaliyeed iyo Safiya Tusmo barbaleenka maalmahan ka hadlaysay dhibaatooyinka haysato. waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed xaquuq ayay leeyihiin, xaquuqdooda waa ku tumateen, sharaftooda waa ku tumateen. war intee aadayna haddaan gabdhihii iska baabiino? waa su-aal jawaabteeda ma lahaaya. marka waxaan leenahay war hablaha noo daaya, gabdhaha noo daaya, hooyooyinka noo daaya. ragow maanta haddaad inaad camera ka duubtid xaaskaaga publican soo dhigaa leedahay, yaa publica usoo dhigaysaa. nin inaag maxay sameeyaan? waa la wada yaqaanaa waxay sameeyaan. meeshaan ilaahaaba baneeyaba nin inaag waxay sameyn lahaayeen. waa noo caddahay, diintaa noo sheegtay. wax diinta ka baxsan maa samaynaysaa? waxaa ku dhalatay waxaa ahayn maa samaynaysaa? waa ku dhalatay, waa ku dhalaysaa, waa u baahan tahay, adigaa u baahan, weli caafimaadkaadaa ku jirto. ilaah baa kuu xalaaleeyey, xalaashaadiyaa marka waxaa leedahay waa xaaraantinimaynayaa, jirkeedaa banaanka soo dhigaya. war ilaahay ka baqa, ilaahay ka baqa, ilaahay ka baqaan leenahay ragga Soomaaliyeed. Safiyoy wax kaama qaadayo qof publican kusoo dhiga ku dhahay yuusan maskaxiyan kuu dilin, qalbi ahaan yuusan kuu dilin, wax ma kaa qaadayo. 5 beri ka bacdina waxaas iyadaa iska dhammaanayso insha allah biidnillahi kariim. asxaabta qaaliga mar walba waxaan leenahay samaanta waarto, xumaantana lugta hoostiisa gasho insha allah biidnillahi kariim. fadlan mar kale waxaan ku leenahay subscribe-ka nagu cimaamada insha allah biidnillahi kariim. intaan fiidoogan fiidoo lamada aan ku kulmayno insha allah. amaana allah, bye bye.